muuqaal kan waxaa duubay al-shabaab xilli ay dilayeen nabadoon cilmi iyo askar badan oo macwuuslaydu ay ku jirto dagaal ka dhacay gobolka hiiraan si degan u daabo waa muuqaal aad ka naxaysid waxaase ayaan darrada ugu weyn ee jirta ay tahay xasan sheekh maxamuud xilli dadka uu dagaal geliyey ayuu suudad wuxuu ku gadanayaa $6,000 Maraykanka ah waxaase laga yaabaa adiga inaad la'dahay $1 ama $2 oo aad raadinaysid $1 oo caawa aad cuntid xasanna wuxuu gadanayaa suudad jooga $6,000 Maraykanka ah iladaa oo waxaa soo socda oo xasan sheekh ku saabsan islaamihiisana waxaa dhex maray dagaal xooggan oo hinaasa salka ku haya kadib mid ka mid ah marwooyinka markii loo xiray asaarka nabad sugidda iyo booliska taas waxay keentay in haweeneyda kale ee xasan sheekh uu qabo in si weyn ay u dagaalanto haddaba ila daawo muuqaaladan nabadoon cilmisa kumu ayuu ahaa muuqaalo kaa ilmaysiinaya ayaad qaybta dambe aad ku daawan doontaan dhammaantiina oo muuqaalka laagta saara siina shargareeya rabbi subxaana wa tacaala soomaaliya ha hagaajiyo dhammaanteennana umuuraha leenahay ilaahay hayna siiyo xasan sheekh maxamuud ayaa dagaal xooggan geliyey qaar ka mid ah beelaha waa xawaadle habar gidir gaar ahaan saleebaan ayadoona dagaalka sidoo kale ay ku soo biireen gaaljacal iyo qabiilo kale waxaase dagaalkaasi weli bannaanka ka ah beesha xasan sheekh uu ka dhashay ee abgaal gaar ahaan wacaysle odayaasha wacaysle waxay iska diideen dagaalka uu ku baaqay wiilkooda xasan sheekh maxamuud ee ka dhanka ah al-shabaab waxayna odayaasha ay fadhiyaan suuqbacaad ayagoona halkaasi shaah ku cabaya islamarkaana aan haysanin wax ammaan ku jirin wax baqdin ah oo ka dhan ah dagaalamayaasha dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya iyo dalalka geeska afrika saleebaan ayaa dib iskaga naqday dagaalka dhammaantooda waxay galeen wadahadal waxaana diiday dhammaan jufooyinkii saleebaan marka laga reebo hal jufo waxayna qarka u saaran yihiin in alcadaala ay dhahaan naga tag dhiiggayna kuma macaashaysid cadaala oo la og yahay sararka iyo dabaqyada 2 sano gudahooda uu kaga dhistay muqdisho haddana raba in dhiig dadka soomaaliyeed uu ku macaasho waxaase sidoo kale xuseen macalin iyo xasan sheekh ay soo qaateen mashruuc weyn oo ay rabaan inay kaga faa'iidaystaan qabiilada soomaalida waxaase xasan sheekh maxamuud maanta la arkayay muuqaalo la yaab leh oo aad daawan doontaan odiga oo gadanaya suudad buluug ah oo jooga $6,000 Maraykanka ah dadkii soomaaliyeed oo gaajo u dhimanaya dadkii soomaaliyeed oo dagaal kula jira al-shabaab iyo weliba ururo la sheegay inay argagixisan yihiin sidoo kale dadkii oo haraad u dhimanaya ayuu xasan wuxuu $6,000 uu kala baxayaa suudad si uu u labisto dadkii madaxweynaha uu sheeganayana waa kuwa baahan soomaaliya ma laha cadow aanu ahayn dam jadiid ma laha cadow aanu ahayn xasan sheekh maxamuud haddii soomaaliya cadow ay leedahay waa dam jadiid waxaase maanta dhacay dagaalkii ugu qaraaraa nabadoon cilmi wuxuu ahaa oday aftaan ah laakiin shabaabka maanta madaxa ayay xabadda kaga dhufteen qadaadkaas halkaanna xabad kale ayay u raacsiiyeen sida ay muujinayo muuqaallo ay ka duubeen nabadoonka allahu naxariiste waxaase sidoo kale goobtaas lagu dilay dhalinyaro badan oo macwuusley ah waxayna dhammaantooda ay ka soo jeedaan beesha xawaadle gaar ahaan cali madaxweyne dagaalka waxaad moodaa hadda in soomaalida qabiilada ay iskaga sii baxayaan oo qabiilo gaar ah dagaalka lagu koobayo taas oo muujinaysa in dad badan ay ka war heleen in xasan xuseen macalin damuumaaye iyo xasan sheekh maxamuud inay soo qaateen mashaariic lacaga badan oo ay ku doonayaan dagaalkan hadda socda iyo dhiigga la daadinayo waxaase muuqata in xaaladda maalinba maalinta ka dambayso ay ka sii darayso waa qasab in soomaaliya ay naqato meel amni ah nabad ah xasiloon qaabkee ayay ku naqanaysaa sideese loo wajahayaa xasan sheekh maxamuud haddii diyaar aad u tahay in lala dagaalamo al-shabaab furunta hore ee dagaalka adiga aad haddii xasan sheekh maxamuud run ay kaa tahay in la dagaalamo ilmaha dhashay wiilashaa dhashay ceeldheer iyo masagoowa u dir qoryaha ha qaataan hala soo duuba ayagoo dagaalamaya laakiin waxaan rabnaa in al-shabaab dalka laga saaro lana xureeyo aniga waa raaxaysanayaa
$6,000 ayaa suuq ku soo gadanaya ilmahayga Turkiga ay joogayaan Djibouti ay joogayaan Salaam Bank waxay ku leeyihiin sheerar waaweyn ilmaha kalena waxaan gelinayaa xaawo oo dabka ku shidaya aqligaas Xasan Sheekh Maxamuud waa aqli foorara waxaan arkay wadaado iyo odayaal qaylinayo leh dagaalka waa in la galaa sida nabadoon cilmi oo kale jiid hore dagaalka aada adoo dagaalamaya xabada halkan ha kaga dhacdo mis halkan ama halkan laakiin ummadda been ha u sheegin adoo diyaar aad u heelaa dagaalantid ummadda ha dagaalgelinin dhawac ila daawo muuqaaladan soo socda oo ah kuwa aad cajiib u ah waxaan kaga hormarinayaa oo aan idin soo gudbinayaa xadka ku saabsan qamar iyo Zahra-Indheer labada marwe oo qaba Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala hinaasay dagaal xooggan ayaa dhaxmaray gacan ka hadal ay ku dhawaadeen kadib markii Zahra-Indheer oo ah xaaska weyn ee Xasan Sheekh Maxamuud la siiyay saadka iyo hoolaha nabad sugidda iyo nisa waa nabad sugidda iyo booliska taas oo ay ka xanaaqday qamarsa wuxuu Xasan Sheekh Maxamuud hadda uu ku qanciyay inuu siiyo saadka milatariga xasan islaamihiisa ayuu kala bixin laayahay wuxuuna u kala qaybinayaa qandaraasyadii milatariga nabad sugidda iyo sidoo kale nabad sugidda iyo booliska waana ayaan darro weyn oo haysata dadka Soomaaliyeed mahal salaad ayaa dhankiisa booday wuxuu isku abaabulay dhowr dhalinyaro beesha habar gidir ah si ay u weeraraan deegaanada ceeldheer masika waa maadaama Soomaalida si weyn indhaha ay ugu eegayaan doorka abgaar gaar ahaan waceysle ay qaadan doonaan wuxuuna dabcay in dhalinyaradaas uu ka dhigay abgaar wuxuuna geeyay macad salaad dhalinyaro badan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe laakiin ilaa hadda dhalinyarada waxay isku waafaqi laayihiin in deegaanadaas ay ka dagaalamaan wixii ku soo kordha waan idin soo gudbinayaa nabadoon cilmi muuqaalada shabaabku ay ka duubeen hadaa daawatid waad nacaysaa madaxa ayaa qabsanaysaa waad ilmeynaysaa haddaba ninkan nabadoon cilmi nin nooca ayuu ahaa wuxuu ahaa madaxa macuusleyda hiiraan madaxa macuusleyda xawaadle ninka fikradda iyo maskaxda lahaa in macuusley cali madaxweyne oo beesha xawaadlaha la dhiso ayuu ahaa nabadoon cilmi haddaba nabadoon cilmi ma aha qof shalay iyo darax soo baxay weligiis wuxuu ka hadlayay aayaha gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne qaybo ka mid ah hadalladiisa taariikhda kale ayaan idiin soo gudbinayaa 1 2 3 aanu ahayn waxaana goorna waan idiin soo gudbinayaa muuqaalada iyo sawirada ay soo bandhigeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaanu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay dagaalkaas socda ay ka qayb qaataan nimankan dalka iyo dadka iyo diinta ku soo duulay in meel looga soo wada jeesto oo aanay maqlin hadalkooda wuxuu daaran yahay dibiga cadaan rabaa dibiga madow ma rabo waxaan idin sheegayaa in doon la saaran yahay oo nin laga jecel yahay uusan jirin awal waxay baagsan jireen aqoon-yahanka sheekha ganacsadaha indheer garadka hadda waxay u soo dhigteen ilmihii iyo dumarkii waa niman ummadda cirib tiraya oo cirib gooynaya saas daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa shabaab waa dhintay waa u dhammaatay hal lees raaciyo guryahana ha laga soo baxo wallaahi nin la deenayaa ma jiro ummadda Soomaaliyeed qaar ahaan reer Hiiraan hawsha aad wadaan aadan ugu faraxsanahay hadday ahaan lahayd ciidamada qaranka iyo ciidamada dib u xiraynta waxa kale oo mahad celinayaa maamulka gobolka ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Cali Jayte Cismaan oo bilaabay howlgalkan la'aantiisna aysan suuragal ahayn waxaana rumoobay hadafkiisii ahaa tacsi keliya ku koobnaan mayno hadafkii baa rumoobay mirihiisiina waa gurannay intii naga dhimatana Allah u naxariisto inta jiran oo dhaawacana Allah caafiyo hawshana waa saan u bilownay insha Allah waa dabar goynaynaa dhammaan inta ka qayb qaadatay oo ama ciidan ah ama dawladda federaal ama Hirshabeelle oo u midowday ummadaas dhibaataysan oo abaartu hayso in nimanka laga dul qaado inta u midowday waxaan u malaynayaa nin iga weyno meeshaan muddo odayga cali madaxweynaana aakiigu baabuurkaas uu saaraya ayadoon hiiraan la xurayn ama waa ku dhiman ama intaan oo mataqaana oo joogaan
bannaanka saasaan u joogaya sariir seexan maayo kolley waa la dhiman lahaa gobonnimaha lagu dhinto darag gunnimo leh waxaa ka wanaagsan gaajo gobonnimo leh ee aan taas isla qaadanno ilaahay baa nagu xukumay dhimasho nagu xukumay saacad iyo wakhtiyaana leennahay qof soo hormari karaaha ma jiro aan isla qaadanno midkii dhiman waxaa la dhimanaa mustaqbalka ileeyaami aan ka fikirno war cadowga iska duuqaadno war misla qaadannay allah idinku og waa qaadanay duul alxamdulilah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً وحنا كسلام يا دمان أهل كشرفت بدنا ومدش عن كل إنسان سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي بمهد سكله اللي ينصور قري مدش عن جوجش عن قروح بدن إن عن سوق النماذج أيانو مهد علنيا وعكرانو مهد علنيا قبض قضاء bixisay oo gogoshaan dhigtay oo intaanoo waalid iyo walaala isugu yeertay ayaan u mahad celinayaa waxa kaloon u mahad celinayaa ahalka soo ajiibay gogosha bacda mahad celin ilaahay baa mahad iska leh mahadoo dhan alle u sugnaatay gogoshan waxaa dhigay ubax cali shiikow caruud waxay daaran tahay gogoshaani isbarasho gabadhani waa gabar qurbo jooga markeedii hore yarayd reexamar ahayd oo aan hiiraan aqoon iyo dadkeeda iyo dalkeeda toona dalkeeda markaan leeyahay dalka Soomaaliya oo dhan dalkeeda ah laakiin meeshay ka soo jeedo ma aysan aqoon waxay u timid inay barato ehelkeeda hooso iyo deegaankay ka soo jeedo saas daraaddeed gogoshaanay dhigatay dadkii waa barteen waana soo dhoweynay waana u ducaynaynaa qof kastoo islaamana muraad uu leeyahay muraadkay leedahay in ilaahay u sahlana ugu ducaynaynaa waxaan rabnaa gogoshanu inaan loo arkin gogol siyaasadeed ma aha gogol siyaasadeed waa gogol ahel isku baranayo wax dhibahoo mashaakiluna ma jiraan intaasaan u sheegaynaa inta fadhida iyo inta maqan intaba wixii ay gabadhaasu rabtana ay sheegan doontana markay timaaday sheegataa la arki doonaa laakiin hadda gogoshu waa gogol isbarasho waana qaadannay waana soo dhowaynaynaa waana isbarannay waana ugu ducaynaynaa weliba hadalkaygu waxaan ku soo koobayaa khudbad dheer uma imaan meesha barasho wanaagsan annagu hadda awal baaba naqiin oo waaridaan u ahay awal aan aqiin intaan aqiin oon aqoonin inay barato eelka ka soo qayb galay madaxda qof walba waxaan ku salaamayaa mar labaad maksabka iyo maqaamku ku fadhiyo alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh madashaan ugu kulmiyey oo na garansiiyey inaan isugu nimaado allihii noo suuro geliyaan u mahad celinayaa waxaa kaloo u mahad celinayaa shirkadda Samtel oo xafladan soo agaasintay anigu intaan joogo waa markii labaad xafladda aan ka soo qayb galay xafladooda magacyo badan oo u bixiyay hadda oday iyo horeey kobciso iyo muxuu ahaa hadallo badan oo u bixiyay marka waxaan jeclahay inaan mar kalena sugi doono wax badan la qabtay masaakiinta in wax loo qabto aadan u danaynaynaa shirkaduhu waa badan yihiin insha Allah xafladan ta ku xigtana waxaan sugi doonaa iyo talabaad ta afraad iyo ta saddexaadba dadka masaakiinta wax la siinayo iyo shirkadaha inta isku dayda la yiraahdo shirkad Samtel ama Hormuud ama shirkadda noocaasa wadadaasay dhistay horumar ballaaran aan ka doonaynaa waa soo dhawaynaynaa waana garab taagannahay waxaan rabnaa waxay wax ka soo galeen waa dadka inay wixii waxna qaataan waxna ummadda geliyaan siday hadda ay u geliyeen aadaan ugu faraxsanahay waana soo dhawaynaynaa waana ugu ducaynaynaa weliba waana jeclahay shakhsi kasta oo reer hiiraana oo ilaahay wax siiyey inuu magaaladiisa geliyo dadkiisa ku soo dhaweeyo wixiisa wax ka siiyo maahan waxaa ka socday magaalada dibadbax
lagu diidan yahay hirshabeelle qolo jabhadana waxay joogtaa meel magaalada ka baxsan hase ahaatee magaalada waxaa ku soo kordha habeenkii ciidamada etoobiyana iyo jabuuti loo adeegsado guryihii laga bixi waayo marka dadkiina habeenkii guryaha loogu dhacayo la xirxirayo ayaan saakay annagoo 50 oday ahaan isku nimid arrintii aan xamili weynay dadan dembi gelin ayaa xiran qofkii dembi galay oo dembi lagu helo waa waajib in la xiro laga wafsado dembigaas laakiin dadan dembi gelin oo shaqo ku lahaynaa la xirxiray markiina la yiri ciidamadaasi dalalka Itoobiya iyo Djibouti yaa dadka u adeegsanaya marka dabcan maamulkaana u yeeray shiraa lala galay sida la sheegayo shalay miya daraadiya ma aqaan المهم military hadhiin boolis hadhiin dadkii guriyihii habeenkii lagala baxayaa xabsigaa lagu gurayaa banaanbax mar hore dhacaad ayaad mataqaanaa u jirtay jabhadaad ka tirsan tahay cid walba waa la iska xirayaa marka waxaan xamili weynay dadkaas dhibka loo geysanayo yaad kala hadasheen oo aad u dacwooteen Soomaalidu waxay tiraa madax meel ka sarreysa oo la salaaxaa ma jirto waxaan aadnay wasiirkii arrimaha gudaha federaalka asagiina waxaana la yiri looma tegi karo oo waa hurdaa 1 kiiloomitir aan u dhaaf waynay nin laba xidiglaha noo yimid wuxuu yiri waa hurdaa iska baxa waa soo baxay waxaan yiri war xageeyay ku dhow annagu dadku waa dadkeeni dib uma rabno magaaladuna waa magaaladeeni oodana ma rabno annagu waxaan nahay dad dawlad ku nool gudoomiye gobolkan aadnay asagiina waxaana la yiri waa hurdaa waa iskaga soo noqonay saldhigii baan nimid inta askarna loo soo diraa yiri odayaasha laftooda hal xirxiro waxaan oo dhan ayaga ka dambeeyay miyaanay marka mas'uuliyiintu la socon in magaalada qalalaasa ka jiro sidee u aragtaan ka oday dhaqan ahaan in mas'uuliyiintii aad rabteen inaad xaaladda kala hadashaan in la idinku yiraahdo waa ay jiifaan wallahi waa ayaan darro annagu oday dhaqan aan nahay maamul maahin haddaan dawladii federaalka wasiirka arrimaha gudaha oo wasiirada ugu muhiimsan ka mid ah u tagnay oon weynay oo aan ka soo noqonnay oon gudoomiyihii gobolka tagnay oo aan taliyihii saldhigga u tagnay oo yidhi ayagaba hal la xirxiro aakhirkii waxaan yidhi warnimayow dowladnimadu saan maaha laakiin ma laga yaabaa odayaashiina inaad ka dambaysaan dadkan dibadbaxa dhigaya oo adinku aad tiraahdeen dibadbaxa oo guryaha ka soo baxa maya lagama yaabo wallahi inaan ogeyn wallahi aan ku maray ma ogeyn markan aadayna ma ogeyn annagoo joogna gobolka waxa la yiri xabadaha dhacay banaanbaxa wuxuu ka socdaa xaafad la yiraahdo kor iyo nuur xawaad ma aan ogeyn qaalina kama nihin annagu dad fawdana ma ahin oday dhaqanaan nahay nabadoon magaciisa waa garan kartaa kaasi wuxuu ahaa nabadoon cilmi xagar guure oo iigu warmay qadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan qaar kamid ah dhageystayaasha BBC-da ayaa qodobkaasi dhinaca Facebook aragtidooda kaga soo dhiibtay Jaamac Maxamuud Xirsi oo jooga degmada Gaashaamo waxa uu leeyahay dibadbaxyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada Beledweyne runtii aad iyo aad baan uga xumahay waxaan ku baaqayaa oo ugu baaqayaa maamulka magaalada Beledweyne midka gobolka iyo dabcan cid kasto gacan ka geysan karta inay dhageystaan cabashada dadka shacabka ayna wax ka qabtaan dhageysto kale oo lagu magacaabo Ismaaciil Macalin Hureere oo jooga Muqdisho waxa uu leeyahay dibadbaxyadaasi rabshadaha wata ee ka dhacay Beledweyne runtii aad ayaan uga xumahay waxaase maamulka Hirshabeelle looga baahan yahay inuu ka jawaabo cabashada shacabka si loo xakameeyo dibadbaxyadaasi loona ilaaliyo xasiloonida deegaanadaasi way mahadsan yihiin waa qaar kamid ah dhageystayaasha BBC-da